السلام عليكم. حفظت القرآن الكريم وموضوع ميسك النصار سيادو حفظت القرآن waxaa laga rabaa arrimo dhowr ah inaad qaarkood iska horleexiso qaarkoodna aad ku talaabsato waxa muuqaalkan ku bidhaamin doona marka aad u soo diyaar garowday xifdinta quraanka kariimka waxa laga rabaa in aad talaabooyinkan ku dhaqaaqdo maadaama quraanku uu la mid ahayn waxyaalaha kale ee la xifdiyo kow waa inay ka soo go'daa oo aad diyaar u noqotaa xifdinta quraanka kariimka labo waa inaad soo weysa qaadataa saddex kadibna tukataa laba ragcadood sunnah si aad ilaahay subhanahu wa ta'ala uga barido inuu kuu fududeeyo quraanka afar waa inaad quraanka ku diyaarisaa jawi degan sida saacadaha dambe ee habeenka waana waqtiga maskaxdu ay soo heshay nasiino ku filan shan waa in kitaabka aad quraanka ka diyaarinayso uu noqdo hal daabac tusaale daabacada Uthman Daha waa sida caadiga ah taqaanaan kutubta inta badan bogi waa 15 sadar muhiimadu waa in maskaxda inuu ku wareerin sawir qaadid bogo kala duwan iskhilaafsan iyo qormo aan isku mid ba ahayn haddaan tusaale yar ku siiyo suurad kamida suuradaha aan soo qaadano suuratu duur markaad aragto waa suurad ka bilaabanaysa bog barkii haddaad bal ka waran la kulanto kitaab ay ku qoran tahay ama ay ka bilaabanayso bog bilowgii hubaal waad ku wareeraysaa maskaxdu waxay qaadaa sawirro loomana baahna inay qaado sawirro iskhilaafsan si hadhow ay u soo tuurto jawaabo iskhilaafsan lix waa inaad eegmada u badisaa kadibna codkaaga ismaqashiisaa toddobo waa inaad ku celcelinta u badisaa aayadda ama sadarkiiba waayo carabtu waxay dhahdaa at-tikraar ta'lamu al-himar joogso haddaad arday tahay halkan waa kuu muhiim inaad kelmaddan si fiican u fahanto dameerku waa xawayaan aanan caqli lahayn waa xawayaan bulshada la macaamila dadku markay ku dhahaan kelmadda kir oo lagu celceliyo isagoon af Soomaali kula garanaynin ayuu wuxuu baranayaa kir micnaheeda kadibna wuu iska tagayaa hadda bal u fiirso isagoo dameer ah oo aan caqli ba lahayn hadduu kelmadda ku celcelin badan oo wax ku fahmay adiga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caqli ku siiyay ku celcelinta badan miyaadan wax ku fahmin sideed samaysa waqti ku gaar ah oo ha noqon qof aan lahayn jadwal quraan xifdis ah sagaal maadaama aad soo xifdiday quraanka xoogaa waa inaad lahaataa maalin muraajaca ah sidoo kale quraanka aad soo baratayna waa inaad ku tukataa salaadaha sunnooyinka toban waa inaadan kala goyn xifdinta quraanka intaas ayaan ku soo koobayaa talooyinkii aan la wadaagay ardayga diyaarka u ahaa inuu xifdiyo quraanka waxa inoo xigi doona qaybta labaad caqabadaha ku diidan inaad xifdido quraanka haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh si aad u hesho xalqada xigta mahadsanid